doonayay caajila adduunyadan tagtaga badan adduunyadan iska tagtagisa ee ma garanaysaa qof kasta uu ka dhimanayo qofkii hantida lahaa uu ma garanaysaa xilliga dambe uu faqiir noqonayo adduunyadan sidaas qofkii doonaya waan u soo dadajinayna fiiha ma nasha liman nuriidu waxaanu doono adduunyaa iyo cidaanu doono waxaa laga yaabaa mid ku haminayay inuu lacag badan helo aad iyo aad u badan oo markuu waliba diintii ka tago macnaha qofkii diintiisa ilaashaday waxaa laga yaabaa ilaahay adduunyadiisa inuu hirgeliyo laakiin qofkii diinta ka taga adduunyadii uu ku haminayay 100% waxaa la siinayaa qaar kamid 60% ama 50% ama 40% waliba waa cidaan doono oo cidii la doonaa la siinayaa qaar waxaa kamid aan ba adduunyadii ku hamiyeen laba siinayn aan la siinaynba ثم جعلنا له جهنم dadka la siinayna waa kuwa ficilka leeyimi kuwa fikirka meelaha iska fikriya ma waa kuwa ficilka weyn iyo dadaalka weyn leeyimi way ثم جعلنا له جهنم مدموما مدحورا kadib jahannama waxaan uga yeelanaa boos meel ma garanaysaa meeshaas meel fog ayaanu keenanaa oo waliba marka la sii canaantay jahannama markaana meeshaas meel fog baa la sii geenayaa ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كوا أدوي آخرة دوني ولبا أورتي ولبا مؤمن أهل الإيمان أن أهين مد منافقة أما أن أهين مد دنكلي وصعد الدن أدنيو كواس سعي يقول أورد كوده iyo waxay shaqaysanayaan waa mid ma garanaysaa shukrina iyo wax weyn ay ku heli doonaan ama dardaaranada ugu muhiimsan hada ummadda islaamka ka maqan oo la doonayay inay dhaqan galiyaan waxa kamid walsimil haya waxad laasimta xishoodka fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala al haya'u min al iman wa qala al haya'u khayrun kulluhu xishoodku waa shayga wanaagsan qofku inuu xishoodo oo inuu ka xishoodo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka xaraantinimay inuu ku dhaco oo inuu ka xishoodo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka xaraantinimay inuu caloosha kaliya oo xaraan cuno oo inuu ka xishoodo waxyaalihii dunubta iyo xuquuqdii Ilaahay subhanahu wa ta'ala garanaysa saaray inuu dayaco nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al haya'u min al iman xishoodku wuxuu ka mid yahay iimaan oo qofka macnaha xishooda waa qof iimaan leh laakiin qofka aanan xishoon qofkaas waa qof ma garanaysaa ama iimaankiisu yar yahay ama bila iimaana al haya'u khayrun kulluhu xishoodku wuxuu ku soo jeedaa khayr xishoodku dhamaantii waxa weeye waa khayr dhamaantii waa khayr markaana waxa weeye in lagu dadaalo xishoodka inay dhalinyaradu xishoodka ku dadaalaan gaar ahaan gabdhuhu inay xishoodka ku dadaalaan waa jidkooda asturaan inay magaranaysa akhlaaqda xun iyo hadalada faraha badan ee inta meelaha ka qeynayaan inay iska joojiyaan ama iska yareeyaan inay hadalkooda hoos u dhigaan watawaadu lil fuqara shiqo wuxuu ku leeyahay waxa kale laasimtaa inaa u tawaaducdid dadka fuqarada dadka masaakiinta aan waxba haysan ee hadar murugaysan hanti yaraan daraadeed iska murugaysan kuwaas in aad hadii ay ugu soo dirtid dhibaato iyo kibir dadkaas hadii ay ugu dirtid waa dhibaato kale Soomaha laakiin u tawaadu oo ma garanaysaa madaxa u salaax oo ma garanaysaa hadii ay waxaysid si oo u naxariiso oo isku kibrin una jilcil markay kula hadlayaan iyo markay kula socdaan iyo sidoodaba u jilcil فإن الله سبحانه وتعالى عاتب فيهم نبيه عليه السلام ونبي صلى الله عليه وسلم وحوك عنانتي نبي عليه السلام أيوك عنانتي إنه كفقاله ولا تدرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وإلهي سبحانه وتعالى مركو دين تصاري يبدنا وحوك دالي لمكي قريشت إيغا وينا إنه صو إسلامي سقو معناها hamigiisu tahay hadii ay nimanka waaweyn islaamaan in ay dadkii kale ay islaamayaan
markaana waxay ku dhaheen haddii aad doonaysid inaad diinta iyo khayrka noo sheegtid dadka la fadhidid ee masaakiinta kuwan fuqarada kuwan adoomada kuwan ugu liita soo baaci ama ma garanaysaa iyaga ka soo tago anaga boosas waaweyn iyo meelo qurux badan iyo meelaha noogu imo oo kuwan ka soo tag marka nabiga sallallahu alayhi wasallam sida markii lagu yiri ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay aayadan oo wuxuu yiri wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil qadati wal ashi yuriduna wajha ilaahay subhanahu wa ta'ala fuqarada iyo masaakiinta asxaabta ka tagin mu dhihin laakiin muxuu ku sifeeyay sifo tii ugu wanaagsanayd ee lagu sifeeyo qof ayuu ku sifeeyay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa lagu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri habaa'in hamaaha irjin الذين يدعون ربهم بالغداة كوا بري يربيغود بالغداة والعشي هبين يا أروربا يريدون وجهه يجو ولب دونيا وجهك إلهي سبحانه وتعالى يجو إلهي الدرجة العبادة السنية ولب إخلاص له تتكاس حباعد صوبته وحلوك لصريو وعبادة يو إخلاصك يو إلهي سبحانه وتعالى إنها لجلسيت إماها وحلوك لصريو مدح بان هاي يو لعق بان هاي يو hebel baan hayo caan baan hayo waxaas macnaha waxa lagu kala sareeyo ma ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa waxa lagu kala sareeyo waxa weeye waa inaad diinta ku dhaqanto wa takabbur ala al-aqniya sheekhu wuxuu kala leeyahay waxa laasimta inaad isku kibrisid dadka qaniga leh isku kibri macnaha wuxuu ka wadaa macnaha al-takabbur fi al-luqa wuxuu ka wadaa qofka ma garanaysaa qaniga sidaba isugu kibrinaysaa waxa weeye si isugu kibrinaysid in qofkii ma garanaysaa in aadan weyneyn oo lacagtiisa ku weyneyn laakiinse wanaagga weyna ku weynaysaa in aan sharaf ku siin lacagtiisa iyo wuxuu haysto inaadan sharaf ku siin inaadan ka sareysin dadkii wanaagsan adigoo ka sareysinaya